waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qisa cajiib ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka muslimka markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ويا بنكي ورنتا أو سنة صاحبها حين وضع معاملون إني هذا يقول قاضي ويدي ما قاضيه وحكى أنيقا وحكى له حلال هذا ذيك كنتو وانكو صار الديار ده لكن كان ما قاضيه دين تيدا أنا يسامح حين نكون قاضي قبل دي سيبا مركا إن أنتي ودلبا فكرة سوا قبل جامعية ده habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay dageen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo مسوعن كرا هاي لبا لعاق اسكب بحين كاري مايو ديارة كرسي فريسان كاري مايو صدح هذيك واحد يقدر دعسي أو ثويه يقدر دعسي أو هذيك كادر دعسنا باهيدنا كنا دبولا يمرك دبات النقبتي حنبرينه وعيت أنا أرنت أسمع مسكح هذا ما قال سيتري ورك كان فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وحيت البريد ولا إنكم أركان دونيا وأيوه وأين أنت وضعك عين كاسة ودلي ويانا ما أنت كنت مد يا أبيه الله صعوتي أبيه الله صعوتي يكاله بالبو مركا كمرتقى ذي مركا قدم ذي وحو مركا إسلام تيسيب صوك حيستي وحجابا وقبض متدين ده مركا سي وصوك شهوتال كي هالكعب قبض فريستي وعيت الآن أذيك عن كلاب الله من روحا كلا كلاب فرد محيته وحول الروح عنك لو حاس كيجي دين تيد إسلام كو إيمان أقبلنا يسوينا أديك كلك اليوم لماذا وانكو جاي أديك محرم بعديته محرم يمتي محرم بعضو بانت نبي محمد بايري نن الناقة جانب ينوسلك اليوم إلا محرم كي يقول له جوجا موياني عليه الصلاة والسلام تعالى ارتقع بكتر قلب جدي للدين بال يا مشهد تعالى وعيت السؤال بنك ويدينا يا دين هذا هذا هو محي وإسلام يا ده من سنة هاي شيء يا الله بنا من سنة لا تدركه الأبصار وهو
tudriku al-absaar kayrka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisa diinta islaamka oo labadii waalid oo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayahay